iiraan iyo israa'iil oo oggolaaday hadda in ay joojiyaan duqaymihii ay isku hayeen kadib markii saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan labada dhinac ay isweydaarsadeen. Netanyahu oo markii hore hadal ka diiday Trump hadda waxa uu leeyahay xabad joojin waan ogon lahay laakiin Iiraan haddayna soo weerarto inaguna si adag ayaan uga jawaabaynaa. Trump muxuu isaguna ka yiri arrintaasi oo labada dhinacba uu ugu baaqay inay xabad joojin sameeyaan miiska wadahadalkana ay ku soo laabtaan. Waan idinla wadaagayaa xuutiyiinta hanjabaadoodu maxay tahay, Iiraan maxay ku eedeynaysaa Maraykanka marka la eego jebinta xabad joojinta. Arrimahaasi oo idil ayaa rabaa inaan idinla wadaago. Gobolka California weli tirinta codadka doorashooyinkii talaadadii hore lasoo dhaafay oo israareebka loogu jiray duqa magaalada iyo weliba gudoomiyaha gobolka California oo weli socoto. Musharax Trump uu taageeray oo hadda laga sara maray. Trump arrintaasi muxuu ka yirina waan idinla wadaagayaa. Waraysigii NBC ay la yeelatay jimcihii lasoo dhaafay oo fadhiga uu isaga kacay Trump sida uu u carooday iyo marka fadhiga uu ka kacayana sidoo kale oo waraysiga uu joojinayana waan idinla wadaagayaa. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa duqaymo isweydaarsaday Israa'iil iyo weliba Iiraan. Iiraan ayaa duqaymaha bilowday waxayna arrintaasi uga jawaabaysay kadib markii Israa'iil ay duqaysay hareeraha magaalada Beirut. Toddobaadkii lasoo dhaafay waxaan ognahay Iiraan waxa ay tiri haddii Israa'iil Lubnaan ay weerarto gaar ahaan caasimadda Beirut iyo weliba nawaaxigeeda wadahadallada gabi ahaanba waan joojinaynaa. Arrintaasi oo Trump Netanyahu intuu wacay xitaa ay meel xun ka gaarto. Trump uu yiri aniga dartay ayaad bannaanka ku joogtaayo xabsi ayaad ku jiri lahayd. Waxaana uu sheegay caalamka waa laga nacay adiga iyo weliba Israa'iil dartaa ayaana Israa'iil loo nacay. Arrintaasi oo xitaa noqotay in gudaha baarlamaanka Israa'iil looga maadsado oo hadalkaasi xildhibaan intuu ka sheego xitaa baarlamaanka laga saaray. Israa'iilna ay tiri anaga ma Trump ayaa noo yeerinaya waxa aan samaynayno ama go'aamada aan gaarayno. Marka Netanyahu cadaadis gudaha ayaa saarnaa haddii hadalka Trump uu yeeli lahaa inuusan ka jawaabin duqaymaha xalay Iiraan ay la beegsatay Israa'iil waqooyigeeda. Arrintaasi waxay noqon lahayd inuu xilkiisa ku waayo. Wasiirka amniga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay xitaa ku hanjabay waxa uu yiri Tahraan waan gubaynaa. Marka cadaadiskaas gudaha saaran iyo Trump xaggiisa cadaadis uu ka saaran yahay ninkii Netanyahu waxa uu noqday darigii labada dhinac ka gubtay. Haddii uusan ka jawaabin duqaymaha Iiraan cadaadis gudihii ayaa fuulaya. Haddii uu ka jawaabana isaga iyo Trump ayay ka dhex tolanaysaa. Marka waa uu iska dhigatiray baaqi Trump uu wuxuu yiri waan la hadlay Netanyahu waana u sheegay inaysan ka jawaabin duqaymaha Iiraan laakiin waa ay ka jawaabtay Israa'iil waxayna weerartay goobo muhiim u ah Iiraan oo ay ka mid tahay caasimadda Tahraan, Tabriz, Isfahan iyo weliba magaalada Mashhad oo ay halkaasi ku weerartay goobo petroolka lagu kala sifeeyo isla markaana waxyaabaha gantaalada ay Iiraan ka samaysato sidoo kale laga soo saaro oo burbur xoogan ay u geysatay. Haddaba Netanyahu ayaa shacabkiisa la hadlay saacada ka hor. Waxa uu sheegay haddii Iiraan iyo Xisbullah ayna soo weeraraan nagama filayaan ayuu yiri inaan gacmaha intaan iska laabanno aan ka aamusno. Maxaa yeelay waxa uu yiri xaq ayaan u leenahay inaan istifaacno. Waxaana uu sheegay haddii Iiraan mar kale ayna soo weerarto ayuu yiri jawaab culus ayaan ka bixin doonaa. Maxaa yeelay waxa uu yiri waxaa hadda aan jawaabihii duqaymihii ay nala beegsadeen aan uga jawaabnay goobahooda militariga iyo goobahoodii ganacsiga inaan weerarnay. Marka waxa uu yiri kama laabanayno. Wuxuu yiri annaga Xisbullah welina ma kala dhammaanin oo waa ay noo qoolan tahay arrinta. Sidaas darteed wuxuu yiri Iiraan haddayna soo weerartana iyadana waan ka jawaabaynaa oo kama aamusayno. Waa kan Netanyahu oo shacabkiisa la hadlayay saacada ka hor. والمهمة لم تكتمل بعد مع حزب الله. في اليوم الأخير إيران وحزب الله حاولوا أن يفرضوا علينا معادلة جديدة وهذه المعادلة لا يمكن تحملها أو قبولها بالنسبة لنا. هم يظنون أنهم قادرون على إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل وأننا لن نفعل شيء وهذا لم يحدث ولن يحدث. ليس في فترة حكمي وأنا أقف عازما على حقنا في العمل ضد أعدائنا. هذا ما فعلناه الآن بعد أن أطلق حزب الله على إسرائيل. أصدرت أوامر لحزب الله بضرب أهداف في بيروت، وبعد أن هاجمتنا إيران أصدرت تعليمات للجيش بمهاجمة أهداف اقتصادية وعسكرية في أنحاء إيران، وهذا ما فعلته.
بعد أن ضربنا النظام الإرهابي في إيران تراجع عن مهاجمتنا، وإذا ارتكب النظام الإيراني هذا الخطأ مرة أخرى فإننا سنرد بقوة بأن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن النفس، ونحن ننفذ هذا الحق كما هو مطلوب منا. dhinaca kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Ismaaciil Bachai ayaa Mareykanka waxa uu ku eedeeyay jabinta xabad joojinta labada dhinac ee Iiraan iyo waliba Israa'iil. Waxa uu sheegay Mareykanku qayb ayuu ka yahay xabad joojinta, waxa uuna si toos ah mas'uul uga yahay maraakiibta ay isbaarada u dhiganayaan. Sidoo kalena waxa uu sheegay in duqeynta lagu hayo Lubnaan uu og yahay in ay qayb ka tahay jabinta xabad joojinta. Sidaas darteed waxa uu yiri maadaama Mareykanku arrintaasi uu ka aamusay, mas'uuliyadda waxa dhacay Mareykanka ayaa dusha saaranaya. Dowladda Mareykanku waa iska fogeynaysa iyo Trump waxay leeyihiin anagu Israa'iil kuma wehlino arrintan, oo Trump waxa uu leeyahay aniga taftayka banaanka, laakiin waxay ku kooban tahay Israa'iil oo kaliya. Waa kan afhayeenku hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan oo isaguna Mareykanka mas'uuliyadda xabad joojintaasi la jabiyay ku eedeynay. The US is directly responsible. They are party to the ceasefire negotiations. Therefore, any event or any act in violation of the ceasefire, be it through the interception of vessels, the targeting of southern Lebanon by Israel, or any other event, will cause the United States to be directly responsible for the escalation in the region. waxaan ognahay xabad joojintan hadda 2 bilood ayay jirtay. xabad joojintan u dhaxaysa Israa'iil, Mareykanka iyo Iiraan 8 bishii afraad ee Abriil ayay bilaabatay, maantana waa 8 bishii Juun. hadda dagaalka Mareykanka, Iiraan iyo waliba Israa'iil u dhaxeeya 101 maalmood ayuu marayaa maanta. saddex bilood waa ay dhamaatay, bishii afraad ayaa lagu sii socdaa. marka 2 bilood kadib ayaa xabad joojintii hadda la jabiyay. waxaana muuqata hadda labada dhinacba waa Iiraan iyo Israa'iil inay yiraahdeen waan joojinaynaa duqeymahan isweydaarsanayno, laakiin Netanyahu waxa uu yiri haddii Iiraan ayna soo weerarto annaguna mid ka culus ayaan ku dhufanaynaa oon uga jawaabaynaa. sidoo kale Xuutiyiinta ayaa dagaalka soo galay. Yaxya Sariic, afhayeenka Xuutiyiinta, ayaa isaguna waxa uu sheegay in gabi ahaanba badda cas maraakiibta calanka Israa'iil wata ama wax kasta oo iyaga la xiriira ay ka mamnuucayaan. waxaana uu sheegay haddii ay arkaan maraakiib Israa'iil ah oo badda cas maraysa inay bartilmaameysanayaan, amarkaasina xilliga hadda aan hadlayo ayuu soo baxay, waana dhaqan gala ayuu yiri. waa kan Yaxya Sariic oo isaguna ku dhawaaqaya amarka ka soo baxay Xuutiyiinta. The Yemeni armed forces affirm the following. First, we declare a complete and total ban on Israeli maritime navigation in the Red Sea, and we consider all enemy movements to be legitimate military targets for our armed forces from the moment that this statement is issued. marka madaxweyne Trump ayaa waxa uu isku dayay arrintan inuu ka nabad dooneeyo. tii hore waa tii lagu diiday xalay markii ay Iiraan ay bilowday duqeymaha. Iiraan markii hore iyada ayaa lagu bilaabi jiray, laakiin markan iyada ayaa bilowday. sidaas darteed Trump markii hore Israa'iil war waa ay ka diiday, laakiin waxa uu bartiisa True Socialka ku soo qoray Israa'iil iyo Iiraan waa inay si degdeg ah ku joojiyaan duqeymaha ayuu mar soo qoray. haddana markii kale wuxuu soo qoray labada dhinacba waa Israa'iil iyo Iiraan waxa ay hadda doonayaan inay xabad joojin degdeg ah sameeyaan, isla markaana wada hadaladii ugu dambeeyay ee nabad lagu gaari lahaa dib loogu soo laabto. waxa uu yiri arrintan jaahilnimada ee doqonnimada ah ee hadda socoto waa in la joojiyaa. waxa uu sheegay go'doominta ay ku hayaan Iiraan in ay weli sii jirayso, weliba si buuxda ayay u sii jiraysaa oo awood ayuu yiri ilaa iyo laga gaaro heshiis kama dambaysa. waxaana uu sheegay arrintan waa in si degdeg ah xal looga gaara ama heshiis lagu gaaraa. Trump markasta wuxuu ku soo celcelinayay heshiisku waa uu dhow yahay, laakiin hadda waxaa muuqata in uu leeyahay waa in degdeg heshiis lagu gaaraa. go'doomintana waa ay sii jiraysaa. labada dhinac ee Israa'iil iyo Iiraanna waa inay xabad joojin sameeyaan, miiska wada hadalkana ay dib ugu soo laabtaan. marka waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha. hadda labada dhinac ee Iiraan iyo Israa'iilba waxay go'aansadeen in ay xabadda joojiyaan, isla markaana miiskii wada hadalka lagu soo laabto. haddii waxyaabo kale ay soo kordhaanna waan arkaynaa. dhinaca kale doorashooyinkii ka dhacay gobolka California talaadadii lasoo dhaafay weli tirinta codadka waa ay socotaa. gobolka California waa gobol aad u weyn, 40 milyan dadka badan ayaa ku nool. sidaas darteed waxaan ognahay xitaa sanadkii lasoo dhaafay dhaqaalaha afraad ee ugu weyn caalamka in gobolka California uu noqday. Mareykanka, Jarmalka iyo sidoo kale Shiinaha oo kaliya ayaa ka sarreeya ayaa la yiri. marka gobolkaasi mar kastaba tirinta codadku waqti ayay qaadataa, maxaa yeelay
codadka lagu dhiibto mailka ayaa aad u fara badan. Hadda musharaxii Trump oo u taageeray duqa magaalada Los Angeles ama LA Spencer Pratt ayaa laga sara maray, waxaana ka sara martay gabar ku jirta golaha deegaanka ee magaalada LA oo la yiraahdo Nithya Raman, waxaana ay ka sareysaa ilaa iyo 31,000 oo codada. Hadda 27% ay iyaduna haysataa, Spencer Prattna 27% ayuu haystaa. Laakiin codadka iyadu haysato oo ay heshay ayaa 196,871 ah. Isaguna wuxuu helay 193,085 cod. Marka Karen Bass iyadu kaalinta koobaad ayay ku soo baxday. Marka labadooda qofka kaalinta labaad soo gala ayaa doorashooyinka November waxa uu la tartami doonaa Karen Bass ayuu la tartami doonaa. Marka hadda Spencer Pratt oo Trump uu taageeray maadaama laga sara maray, ninkii Trump ha arintaasi aad ayuu uga carooday, waxaana uu bartiisa True Socialka ku soo qoray qoraalkan uu leeyahay mar kastaba Trump waa uu dhaliilaa qaabka codadka gobolka California loo tiriyo, gaar ahaan codadka mail-in ballotka. Wuxuu yiri waa la musuqmaasuqaa, waa lagu shubtaa ayuu yiraahdaa. Sidaas darteed wuxuu yiri suuragal ma ahan in Spencer Pratt uu lumiyo tartanka loogu jiro duqa magaalada LA. wuxuu yiri markii hore codad fara badan ayuu ku hogaaminayay, haddana waxa uu muuqdaa in uu luminayo. wuxuu leeyahay caalamka saddexaad oo kale ayaan u dhaqmaynaa, doorashooyinka waa lagu shubanayaa. haddana waxa ay doonayaan in haddana ay booska ka tuuraan Steve Hilton oo isaguna musharaxiinta gudoomiyaha gobolka u sharaxan kamida California oo Trump uu taageeray, ayaa waxa uu yiri hadda waxa ay doonayaan haddana booska inay ka riixdaan. isagana waxa ku soo dhawaanaya Tom Steyer oo dimuqraadi oo nin ganacsadaha kaalinta saddexaad ugu jiro tartanka israa'iilka gudoomiyaha gobolka California loogu jiro. marka waxa uu yiri hadda Spencer Pratt kaalinta saddexaad ay u tuureen, haddana waxa ay doonayaan Steve Hilton in kaalinta saddexaad ay u tuuraan. marka madaxweyne Trump wuxuu yiri possibly sida saraakiisha hadda gobolka California ay sheegayaan 2 toddobaad oo kale ayay qaadan doontaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada tirinta codadka California inay soo baxdo. marka waxa uu leeyahay hadda mid kamid ah musharaxiintii aan taageeray kaalinta saddexaad ayaa loo tuuray, haddana dhinaca tartankii gudoomiyaha gobolka loogu jiray musharaxa uu taageero kaalinta labaad ku jira, musharaxa kaalinta saddexaad ayaa ku soo dhawaanaya. marka wuxuu leeyahay meeshaasi doorasho kama jirto oo waa lagu shubtaa. Trump mar kastaba waxa uu aad u dhaliilaa codadka lagu dhiibto mailka oo dadku waraaqaha intii codkooda ku qoraan ay mail garayaan. isagu waa uu ku dhiibtay hadda doorashadii ugu dambeysay ee gabadha dimuqraadiga ay ku soo baxaysay Florida Palm Beach meesha uu ka degan yahay, isagu xitaa waa uu ku dhiibtay. hadda wareysigii uu siiyey jimcihii telefishinka NBC gaar ahaan gabadha la yiraahdo Kristen Welker oo Meet the Press axad kasta daadihisa, Trump markii la weydiiyey arrimaha doorashooyinka iyo madax banaanida doorashooyinka Mareykanka aad ayuu u carooday. Trump gabadhii ayuu caayay, telefishinka ay u shaqeyso NBC ayuu caayay, ABC ayuu caayay, CNN ayuu caayay. wuxuu yiri dhammaantiinba waxaad tihiin wax oo macno la'aan ah. sidaas darteed waa uu carooday. wuxuu yiri muddo saacada ayaa halka ku fadhiyay oo roob da'ayay, wareysiga mar la joojinayay. marka wuxuu yiri dadkii isaga la shaqeynayay yiri waa dhamaatay, waan soo gabagabeynaa. waa uu istaagay, microphone-kii ayuu iska furay, dhulka ayuu ku tuuray. markii uu sii istaagayna microphone-kii ayuuba ku istaagaba. gabadhii indha ayaa ka soo haray sida aad muuqaal ka arki doontaan. markuu istaago dhaqaaqo, gabadhii waa ay soo jeesanaysaa iyadoo yaaban. waxa uu u reebta ma leh, iyadoo caayay, telefishinkay u shaqeynayso caayay. xitaa waxa uu sheeganayaa Trump doorashooyinkii 2020 Biden inuu uga guuleystay. gabadhu waxay leedahay mudane madaxweyne wax cadayna oo maxkamaduhu ay ku qanci karaan ma aadan soo bandhigin. marka wuxuu yiri adinka dhamma telefishinadiina dhinaca bidixda, wuxuu yiri dhinaca dimuqraadiyiinta ayaad u jarjartaan. marka wuxuu yiri wareysigan waan soo gabagabeynaya. wuu iska istaagay, microphone-kii ayuu iska furay, dhulka ayuu ku tuuray, wuu ku istaagay, kadibna wuu sii dhaqaaqay. bal wax yar ila daawada sida Trump wareysiga uu soo gabagabeeyay gabadhan markii ay weydiisay su'aalo la xiriira madax banaanida doorashooyinka Mareykanka iyo wax cadeymaha u hayo musuqmaasuqa dhinaca doorashooyinka Mareykanka ka jira oo madaxweynuhu mar kastaba uu sheegay. Press is crooked and Meet the Press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's Really? Let's Well, you continue. play right into their hands. then. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. Let's you play continue. right into their hands with this rap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide and I got 94% bad press. But Mr. President, You know why I you've got never that? presented Because you have no evidence. credibility. But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about. I want to talk about Todd You Blanche. have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk Your about elections You in went this to country, court. we're like a third world country. But, sir- Your elections are crooked, and you're crooked, and But, Meet Mr. the Press is crooked, Mr. and so President- is ABC and CBS and CNN. But, Mr. President- You're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough.
Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I I've sat in the traveled rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what? Mr. A President, country can never be we great traveled with a dishonest Listen, press. we Come on, let's traveled go. all the way to Wisconsin for this interview.